بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele gardaadiyaha iyo garabka joogtada ah ee u hiiliya afka Soomaaliga iyo guud ahaan aqoonta halkan waxaan ku akhriyaa war murtiyeedkii naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed Somali Speaking Band shirweynaha lixaad Djibouti كوبيا لباتنكي إلا صدح لباتنكي بيش ديسمبر لبكون يسقالي طبعا شروينها اللي حاد الناديك قليل ليدي هالأبور كالصوماليات صومالي بن وحاوكفر مجورجا أمدا مالنتي سبت دهيد كوبيا لباتنكي ديسمبر وحاكسوا قيب قلي مسؤولين أي كمديهين وسيرو دنجريال حلدبانو مدح ذا كل الدوان الناديك وكيل هذا اللامها كل الدوان إيو مرت شرف كلام waxaa si rasmi ah u furay shirweynahan wasiirka islaamka dhaqanka iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Djibouti mudane Muumin Xasan Barre oo shirweynaha u soo gudbiyay wasiirku wuxuu shirweynaha u soo gudbiyay salaanta uu uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele wasiirku waxa kale oo uu tilmaamay in afka hooyo uu yahay haybta qofka Soomaaliga ah wuxuuna naadiga ku booriyay inay shirweynahan ka soo saaraan go'aano dhaxalgal ah oo waxtar u noqda afka iyo dhaqanka ugu horeynba waxa shirweynaha u warbixiyay Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin oo ku hadlayay afka guddiga qabanqaabada wuxuuna ka warbixiyay dadaalkii dheeraa iyo hawshii ay u soo galeen qabanqaabada shirweynaha lixaad ee naadiga Ben ee qalinleydii hal abuurka Soomaaliyeed waxa kale oo xafladda furitaanka shirweynaha lixaad ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin mudane Xaashi Cabdilaahi Orax Dr. Cabdiraxmaan Macallin Baadiyow Tanjire Maxamuud Dirir Marwo Caasho Xaaji Cilmi iyo mudane Ashkir Nuur waxaa suugaan ku habboon madasha soo jeediyay Abwaan Axmed Awgeedi iyo Marwo Dahabo Sheekh Maxamuud waxaa laga warbixiyay aasaaskii iyo sooyaalkii uu soo maray naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed Somali Ben iyo xaaladii gaabiska ahayd ee uu ku sugnaa dhowrkii sano ee u dambeeyay waxaa la tilmaamay baahida weyn ee loo qabo dardargelinta iyo xoojinta hawlaha naadiga ugu horeynba shirweynuhu wuxuu u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele gardaadinta iyo garab istaaga joogtada ah ee uu la garab taagan yahay naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba bahda aqoonta iyo dhaqanka taageerada joogtada ah la'aanteed naadiga way ku cuslaan lahayd inuu fuliyo hawlaha loo igmaday aad iyo aad ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ugu mahadsan yahay gardaadinta iyo garab istaagaas joogtada ah shirweynuhu wuxuu ka mahadnaqayaa martisoorka heerka sare ah ee ay u fidiyeen xukuumadda iyo shacabka Djibouti shirweynaha waxa uu qabtay aqoon wadaag iyo kulamo kala duwan oo lagu gorfaynayo hawlaha naadiga xaaladda qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed arrimaha afka iyo dhaqanka waxa ayna soo jeediyeen aqoon-yahanadii kala duwanaa ee ka qaybgalayaashii shirweynaha lixaad doodahaas kadib talooyinka iyo qodobada soo socda qodobka koowaad shirweynuhu wuxuu u mahadnaqayaa guud ahaan mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada naadiga oo ay ugu horeeyaan guddiga fulinta dadaalkii iyo hawshii ay soo qabteen muddadii la soo dhaafay number 2 dardargelinta naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed iyo xoojinta hawlaha kala duwan ee uu qabto waana in la joogteeyaa kulamadiisa kalaha ah 3 ahmiyadda ay leedahay in ubadka lagu soo barbaariyo afkiisa hooyo lana kobciyo xirfadiisa luqadeed iyadoo la adeegsanayo agab waxbarasheed ku habboon 4 qoraagu wuxuu u baahan yahay kaabayaal ka kaalmeeya geedi socodka qoraalka iyo tayeyntiisa sida tifaftirka daabacaadda faafinta iyo suuqgeynta dhiganayaasha number 5 xoojinta wada shaqaynta hay'adaha ku hawlan arrimaha afka iyo dhaqanka sida naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed Somali Ben
akademiya goboleedka af Soomaaliga aaga guddiga af Soomaaliga ee akademiyada afafka ee Afrika ee Akalan iyo xarumaha kale ee ka jira dalalka geeska Afrika 6 hawlaha loogu adeegayo afka iyo dhaqanka waa inay ka wada shaqeeyaan dawladaha maamulada hay'adaha aqoonta iyo cilmi baadhista ururada bulshada rayidka ah iyagoo kaashanaya bulshaweynta Soomaaliyeed 7 kobcinta kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada aasaasiga ah iyo guud ahaanba faafinta aqoonta guud 8 tayeynta qoraalka iyo hal abuurka qalinleyda Soomaaliyeed si uu ula jaan qaado adduun weynaha noqdana mid ku habboon casrigan iyo dhalinyarada maanta 9 af Soomaaligu waa af guun ah hodan ah oo qoto dheer oo ku taagan tiirar adag u se baahan daryeel iyo cilmi baaris joogto ah si loo tayeeyo loona kobciyo adeegsigiisa iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyada iyo agab wacaaleedka casrigan 10 in si gaar ah xil la isaga saaro carruurta ku barbaaraysa qurbaha laguna ababiyo afkooda hooyo iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suuban 11 ka shaqaynta habaynta iyo mideynta af Soomaaliga iyo dhigaalkiisa number 12 dhiirigelinta qoraalada iyo hal abuurka tayada leh sida in la sameeyo tartamo iyo abaalmarino sanadle ah shirweynuhu 12 qodob kadib shirweynuhu wuxuu diyaariyay qorshe hawleedka naadigu uu ku hawlgeli doono kuna shaqayn doono muddada soo socota sidoo kale shirweynuhu wuxuu doortay mas'uuliyiinta iyo guddiga fulinta ee naadiga hal abuurka iyo qalinleyda Soomaaliyeed Somali Pen oo muddo xileedkoodu yahay muddo 2 sano ah waxayna kala yihiin sidan soo socota odayada naadiga 1 mudane Siciid Jaamac Xuseen 2 mudane Xaashi Cabdilaahi Orax 3 macallin Siciid Saalax Axmed 4 mudane Axmed Faarax Cali Idaaja 5 Dr. Ali Muuse Ciye 6 abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi 7 mudane Nuuraddiin Faarax 8 mudane Ambassador Maxamuud Dirir gudoomiye sharafeed shirweynuhu wuxuu u doortay Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiye sharafeed joogto ah gudoomiyaha naadiga iyo guddiga fulinta 1 mudane Ismaaciil Xuseen Taani gudoomiye mudane Mustafa Cabdilaahi Fayruus gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Axmed Awgeedi gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Cabdi Axmed xogayaha fulinta ee naadiga Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin oo ah la taliyaha gudoomiyaha naadiga sidoo kale shirweynuhu wuxuu doortay xubnaha guddiga fulinta oo isugu jira mas'uuliyiinta xafiisyada naadiga ee ku yaala xarunta dhexe ee naadiga ee Djibouti iyo wakiilada laamaha naadiga ee geyiga geeska Afrika iyo daafaha dunida ugu dambeyn shirweynuhu wuxuu mar kale u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ugu dambeyn shirweynuhu wuxuu mar kale u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele sida joogtada ah ee uu ugu hiiliyo afka hooyo horseedna ugu yahay hawlaha loogu adeegayo afka hooyo iyo guud ahaanba aqoonta iyo cilmiga waadna mahadsantiin